عثمان بن عفان الله رالي كان نقضي الضوميه سي الضون كميدو ويا مالين وعود العكت انقاض أبو ذر الغفاري وقي هدو العكتا أبو ذر هدو العكتا كاقاتنا حربات هاي بكير حر واكو حري أبو ذر مركا مقالة مدينة دبدة ودقنا ريب دم من الليلة وعثمان بن عفان باكول هلكا أوقو راضيقو وأيوان الزاهد أبوها قرنقي نبي قد موداينو جوغي سقو داد كان تابعين تا الدين تقصو قدال دنبا كيمي الدوية دي اللي مادين ودن ونفين يا سقو دركي نبي محمد وكاكد تيبو ستاولي عريشكي نبي محمد وكو أغانا وقلا عنتدي عهدي نبي قو نبي قال لعنا ولي وعنا يسقو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه marka ninkii adoonka lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo salaam ahinde nin baa lacag diidaya haska jecelahay oo yimiday oo salaamay wuxuu amirkii muuminiinta Uthman baan salaan kaaga sida waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar al khilaafa ka waran masjidii nabiga ka waran muslimiinta xalqooga ka waran markuu uga waramay ayuu yiri lacagtana uu soo dhiibo wuxuu yiri Abu Dar u gee lacagtaas markaas uu maxaan ka dhigaa wuxuu de haw kaalmeystay adduunyadiisa markaas uu yiri u celiyo waxaad ka tiraahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa Madiina joogtay cidaasi ka dhabu yiri inaga maanta lacag nin diidi kara uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahideeda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaga laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istighfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilay waa diin weyn adduunyo ma markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ay runta u sheego wuxuu ku yiri amiirka wuxuu igu yiri hadduu Abu Dar lacagta ka qaato xor baa tahay buu igu yiri ar walaal adoonnimada han ka baxe xoreeyo lacagtan iga qaado buu ka yiri markaasuu ka qaadan maayo waxaad doonto akhri markaasuu origa qaado oo ina xariiso maxaa kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi Abu Dar dhegayso hadalku ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anu addoon xor aan ahay buu xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wada Usmaan u keenay wuxuu yiri waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagta ka qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunyo u jeeda maaha Abu Dar al-Ghifari lacagta daliil mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacanta ku hayso diintaadii aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل